Lamine Yamal waa ciyaaryahan la odhan karo maanta waa kan ugu fiican adduunka. taageerayaashuna way sheegayaan, warbaahintuna way sheegaysaa, xitaa ciyaartoyda kale ayaa sheegaya. wuxuuna keliya jiraa 17 sano, laakiin durba wuxuu ku haystaa adduunka oo dhan cagiisa hoostooda. bal eeg, waan jeclaanay Lamine Yamal. wuxuu runtii yahay jiil aan la arag, waana mid ka mid ah fanaaniinta kubadda cagta waqti xaadirkan. mana jirta cid naga mid ah oo shaki ka qabta in uu mar ku guuleysan doono jaa-isada Ballon d'Or mar amba xitaa dhowr jeer, laakiin weli ma aaminsanin inuu hadda ku guuleysan doono. haddii aad daawato muuqaalkan ilaa iyo dhammaadka, waxaad ogaan doontaa sababtaan sidaas u idhi, waxaana laga yaabaa inaad la fikir noqoto. daawade, kuwani waa 5 sababood oo Lamine Yamal uusan weli ugu guuleysan karin Ballon d'Orka waqti xaadirkan. sababta koobaad waa mid sahlan. tan iyo markii la bilaabay Ballon d'Orka 69 sano ka hor, weligeed lama siin ciyaaryahan dhalinyaro ah. tanina ma aha in ciyaarta kubadda cagtu aysan hore u soo arkin ciyaartoy da'yar oo aad u fiican. waxaan hore u soo aragnay Lionel Messi, Michael Owen, Ronaldo Nazario iyo ugu dambeyn Kylian Mbappe, laakiin midkoodna looma aqoonsan ciyaaryahanka ugu fiican caalamka intay weli ahaayeen dhalinyaro. ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee abid ku guuleysta abaalmarinta Ballon d'Or waa Ronaldo Nazario oo ku guuleystay isagoo jira da'da 21 jirka sanadii 1997. waxaa muuqata in arinta da'du ay si weyn u saamayso maskaxda dadka codka bixinaya, taasoo ka hor istaagi karta inay siiyaan ciyaaryahan da'yara abaalmarinta ugu sareysa xirfadda kubadda cagta. sanadii 2018 Kylian Mbappe oo ahaa 19 jir wuxuu lahaa sabab buuxda oo uu ku helay Ballon d'Or. wuxuu ku guuleystay koobka adduunka, wuxuu la qaaday 3 liig gudaha PSG, wuxuu noqday gooldhaliyihii labaad ee ugu sareeyay koobka adduunka, wuxuu ka mid ahaa kooxda riyada koobka adduunka, laakiin wuxuu ku dhamaystay kaalinta afraad. Griezmann ayaa xitaa ka horeeyay, inkastoo uusan xitaa ka soo bixin wareegga guruubyada ee Champions League xilligaas. Lamine Yamal laftigiisu wuxuu hore ula kulmay takoordeed. tusaale ahaan Euro 2024 wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa tartanka, laakiin Rodri oo ahaa ciyaaryahan waaye araga ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka tartanka, halka Lamine Yamal la siiyay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu da'da yar. waa arrin adag in la sharaxo, laakiin u muuqata in uu jiro nidaam taariikhi ah oo ka shaqeynaya dhanka ciyaartoyda da'yarka ah, taasoo keeni karta in Lamine Yamal uusan ku guuleysan Ballon d'Orka sanadkan gebi ahaanba. laakiin taas xitaa maahan sababta keliya ee uu ku seegi kara abaalmarinta Ballon d'Or. xidigii hore Barcelona Ousmane Dembele ayaa isna jidka taagan. haddii uu ka hogaamiyo PSG oo ay ku guuleystaan Champions League-goodii ugu horreeyay taariikhda kubadda cagta, isla markaana ay dhamaystiraan 4 League Cup oo noqdo gooldhaliyaha ugu sarreeya horyaalka iyo Champions League, markaas way adag tahay in la diido. taasina waxay noqon doontaa koobo badan, abaalmarino shakhsiyadeed iyo goolal ka badan intii Lamine Yamal uu keenay sanadkan. Dembele ma ahan ciyaaryahan gamis fiican sida Lamine, laakiin indhaha ayuu qancin karaa. laakiin PSG haddii ku guuleystaan Champions League, Lamine Yamal weli wuxuu ku jiri doonaa tartanka. laakiin waxaa jira 2 arrimood oo kale oo sida ka hor istaagi kara. laakiin ka hor inta aynan taas u gudbin, haddii aad weli kusoo birin kanaalka, fadlan nagu soo bir adigoo taabanaya subscribe si aysan kuu dhaafin waxyaabaha cajiibka ee aan kusoo gudbina kanaalkeena. hagaage, hal sabab oo kale oo Lamine Yamal ka hor istaagi karta xitaa PSG haddii ay ku guuldareystaan Champions League waa FIFA Club World Cup-ka. Barcelona ma aysan u qalmin inay ka qayb gasho Club World Cup-ka sanadii 2025, waana fursad weyn oo ciyaartoyda kale ay u heli doonaan inay ka adkaadaan Lamine ka hor inta aan codbixintu dhammaanin. tartanka cusub ee Club World Cup-ka si weyn ayaa loo suuq geeyay, wuxuuna noqon doonaa mid weyn. ciyaartoyda sida Dembele, Lautaro, Bastoni, Mbappe iyo xitaa Harry Kane ayaa fursado dheeri ah ka heli doona si ay codad u helaan. xitaa Messi ayaa tartanka jooga, la iskama indhatiri karo isaga, mana aha sharciyadeena. waxaan u baahannahay inaan fahanno sida ay wax u shaqeynayaan. taas keliya maaha, waxaa jira arrin kale oo muhiim ah, waxayna tahay eexda waqtiga dhow. Lamine wuxuu ku guuleystay 3 liig gudaha Barcelona, waana sax, waana arrin weyn, laakiin waqti hore ay dhamaatay. haddii ciyaartoyda kale ay wax la yaab leh ka sameeyaan Champions League finalkiisa iyo Club World Cup-ka, ha la yaabin haddii dadku ay hilmaamaan wixii Lamine hore u qabtay, inkastoo ay hayeen waali.
waxaan hore u aragnay tusaalaha midaas xilli ciyaareedkii hore dad badan waxay ku andacoonayeen in Vini Jr uu durba ku guuleysan doono baaladoorkiisii ugu horeeyay kadib finalkii Champions League wixii uu sameeyay Rio Ferdinand xataa si xoog ayuu buunbuuniyay kadib goolka uu Vini ka dhaliyay Dortmund laakiin waxaan hore u sheegnay Vini inuusan xitaa ku guuleysan doonin sababtuna waxay ahayd in tartan weyn uu dhici doono xagaagaas Isbaanishkuna waxay heleen Euroga Rodri wuxuu la hoyday Ballon d'Or-ka ma ahayn in Vini uusan istaahilin laakiin eexda waqtiga dhow ayaa ka shaqaysay dhankaas 4 Lamine Yamal xataa kama qayb galaya Club World Cup-ka markaa eexda waqtiga dhow si dhaba ayay u shaqayn doontaa laakiin haddii uu ku guuleystay inuu ka gudbo dhammaan caqabadahaas oo uu weli ka mid noqdo musharaxiinta ugu sarreeya Ballon d'Or-ka waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco hal arrin oo kale taasoo lagu magacaabo split vote amba kala jebinta codadka waxaana arrintaas ka hadalnay xilli ciyaareedkii hore Real Madrid waxay lahaayeen 2 musharax oo ay wateen oo kala ahaa Vini iyo Bellingham codadka Madridna waxay u qaybsameen labadooda iyo xitaa Carvajal xilli ciyaareedkana Barcelona ayaa laga yaabaa inay la kulanto arrinkaas Yamal Rafinha iyo Pedri dhammaantood waa musharaxiin u qalma Ballon d'Or-ka taasna micnaheedu waa in codadka la xiriira Barcelona ay u qaybsami karaan saddexdooda taasoo siin karta Dembele fursad uu si sahlan ugu guuleysan karo 5 kooxaha kale waxay u muuqdaan kuwa kaliya la hal musharax oo iyaga matalaya Madrid waxay haystaan Kylian Mbappe Bayern waxay haysataa Harry Kane PSG waxay haystaan Dembele Interna waxa laga yaabaa inay u ololeyso Lautaro sidaa darteed codadka kooxahaasi waxay si toos ugu soconayaan musharaxyadooda haddaba yaa doonaysa inuu ku guuleysto Ballon d'Or-ka sanadda 2025 yaad si aaminsan tahay inuu ku guuleysan doono imse Ballon d'Or ayaad u malaynaysaa in Yamal uu ku guuleysan doono xirfadiisa kubadda cagta goormas ayaad u malaynaysaa inuu ku guuleysan doono koobkiisa ugu horeeya Ballon d'Or-ka su'aalahaas oo dhan jawaabtooda nagula wada qaybta commentiga hoose haddii aad ka heshay muuqaalkan amba uu ku xajabiyayna ha iloobin inaad like saarto waxaan soo gaarnay dhammaadkii muuqaalkeena ha iloobin inaad nagu soo biirto adoo taabanaya subscribe intaynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaal la mid ah sidaas iyo maca salaama fi amaanillah